shirkani oo lagu dhameystirayo heshiis dhexmaray maamulka Ahlusunna iyo dowlad goboleedka Galmudug State isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen madaxda ugu sareysa dalka madax ka socotay beesha caalamka iyo mas'uuliyiin kala matalaya maamulada heshiisku dhexmaray ayaa ka dhacay qasriga looga arimiyo dalka ee Fila Soomaaliya ugu horeen Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa qodobada heshiiskani saxaafadda u akhriyay in la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee Ahlusunna wal Jamaa awood maamul oo ah madaxa xukuumadda Chief Minister of Ministries awoodiisana ay ka mid yihiin horgeynta golaha shacabka wasiirada wasiiru dowlayaasha wasiir ku-xigeenada marka madaxweynuhu soo magacaabo b gudoominta fadhiyada golaha wasiirada c waxa uu la tashadaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa mar walba d madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa magacaaba xilkana ka qaada wasiirada wasiir dowlayaasha wasiir ku-xigeenada markuu la tashado madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa golaha wasiirada afar waxaa lagu heshiiyey in la isku daro labada baarlamaan oo hadda jira iyada oo la raacayo awood qaybsiga beelaha shan in golaha wasiirada lagu qaybsado si heshiis lagu yahay oo ku salaysan habka awood qaybsiga iyada oo la raacayo awood qaybsiga beelaha lix in Ahlusunna wal Jamaa ay soo magacaabato gudoomiyaha maxkamadda sare toddobo in lagu qaybsado taliyayaasha iyo taliye ku-xigeenada ciidamada sida daraawiishta nabad sugidda booliska iyo ciidanka asluubta iyada oo la raacayo awood qaybsiga beelaha sideed in gudoomiyaasha degmooyinka ee hadda jira ay sidooda u sii shaqaynayaan inta laga dhisayo maamul dhammaystiran sagaal waxaa la isla meel dhigay in la iswaafajiyo labada dastuur iyo labada astaan ee maamulada Galmudug iyo gobolada dhexe Ahlusunna wal Jamaa si dan u ah maamulka dhismaya iyada oo loo saarayo guddi farsamo gudoomiyaha Ahlusunna ayaa dhankiisa ka hadlay sida uu arko heshiiska ay wada gaareen Ahlusunna iyo Galmudug heshiiska halkan ka dhacay waxaan dawladda federaalka ugu baaqaya beesha caalamka ugu baaqaya inay taabageliyaan inay garab istaagaan gobolada dhexe wixii ay ka hakradeen oo kala maqnaanta ay kala maqnaayeen uga hakradeen maanta ay u fadhiyaan madaxweynaha Galmudug ayaa dhankiisa heshiiskani soo dhaweeyay jeedaya inaan noqono kuwii isu taga oo si fiican isugu taga oo inta naga hadhay degdeg baan u dhamaysan doonaa insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaa 15 bisha soo socota muddo bil gudaheeda inaan wax kasta oo naga dhiman dhamaystirano caasimadeedii dhabdhawanno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kula dardaarmay dhinacyada Galmudug iyo Ahlusunna inay isku tanaasulaan isagoona sheegay in shacabka Galmudug ay heshiiskani xil gooni ah iska saaraan annagu hadda meeshan markhaati aan ka nahay kulligeen waana la saxiixnay inay dhaqan gasho laakiin iyaga laga rabaa iyo shacabka reer Galmudug inay hirgeliyaan dib u heshiisiinta oo ay ka hormariyaan danta guud ay ka hormariyaan wax walba ay ka hormariyaan bacdama madaxdoodii ay diyaar u yihiin ayna muujiyeen xilkasnimo iyo tanaasul waxa la rabaa xildhibaanada naftooda inay muujiyaan tanaasul iyo xilkasnimo golaha wasiirada hadda joogana waxa la rabaa saas oo kale inay muujiyaan shacabkana waxa laga rabaa inay iyaga naftooda tanaasul ay muujiyaan heshiiska Galmudug iyo Ahlusunna hadii uu suurto galo waxa maamulka Galmudug uu ka gudbi doonaa caqabado badan oo ku horgudbana maamulkaasi Cabdiqani Axmed Abtidoon Kalsan TV Muqdisho